Please share it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي نبمال كستو الدنيا كجوكتان وايدين السلامية وسعيدكين عبد الله دسر. ما أنت وحان دونيا إن إسدول تاغو مرحلة السياسة إنك كسو عصبانات الصومالية وحا الصعودة دلالو لو دونيا إن لو دردر قليو absoomidda doorashada dowladda Soomaaliya iyadoo maalmihii ugu dambeysay sidaad ogtihiinba ay socdeen kulamo gaar ah iyo weliba kuwa si guud loo qabanayay oo u dhaxeeya siyaasiyiinta hawiye kuwa dowladda ku jira ee muxaafidka ah iyo weliba kuwa mucaaradka ah. Kulamadaasi waxaa loogu gogol xaarayay sidii ay suurtagal ku noqon lahayd in ay doorasho qabsoonto iyadoo laga baaqsanayo rabshado iyo dhibaatooyin dhaca. Haddaba arrintaasi qaybo ka mid ah oo fara badan waa lagu guuleystay sidaad ogtihiin oo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mr. Roble ayaa waqti badan ku bixiyay sidoo siyaasiyiinta ugu qancin lahaa arrimaha ay rabaan isla markaana oo ugu hirgelin lahaa waxyaabaha ay markaasi doonayaan oo ay ka mid tahay doorashada aan iraahdeen bannaanbaxa. Haddaba haddaan su'aal is weydiino sidaad ogtihiin magaalada Muqdisho waxaa si xawli ah uga socda cudurkii dilaaga ahaa ee COVID-19. dadkaas mas'uuliyiinta ah ee horjoogayaasha u ah ummadda Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah ee qaarkood xilka waddanka ugu sarreeya soo qabteen kuwa kalena wasiirro iyo weliba ku-xigeenno xildhibaano ay ugu horreeyaan ayaa waxa ay codsanayaan ay ku doodayaan waa in bannaanbax nabadeed nolol ogolaado oo u dhaco. dowladdu awalba ma aysan diidanin arrinkaas oo waa ay ogoleed laakiin dhibaatada soo cusboonaatay ee cudurka COVID-19 dartiis ayay ku diidaneen. haddana siyaasiyiintii arrinkaasi waa ay ka kaaftoomi la'yihiin oo way ku adkaysteen. waa la oggolaaday iyadoo dantooda gaarka ah bis la fiirinayo iyaguna aysan fiirinaynin dhibaatada shacab weynaha Soomaaliyeed uga imaan karta bannaanbaxaas oo cudurkaasi sida fudud la isku qaadsiinayo oo si fudud ku haleeli karo dadkaas tirada badan ee bannaanbaxa isugu imaan doona. haddaba iyadoo arrintaas ay jirto ayaa siyaasiyiinta waxaa ka mid ah kuwa arrintaasi si xun uga soo horjeeda oo ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Mr. Thabit Abdi iyo kuwa kaloo badan. marka walaalayaal arrintaasi waa arrin aad u xun. siyaasiyiintani dantooda gaarka ah ayay wataan waxaana arrinta ugu yaabka badan ay tahay in dowlad dhisan ee jirta ay ku qasbaan in bannaanbax dowladdaasi looga soo horjeedo ay iyadu hoggaamiso oo dowladduna ammaankeeda sugto. maba xumo ammaanka waa la sugi karaa laakiin inay dowladdii qabanqaabadii bannaanbaxa ay ka qayb qaadato waa arrin yaabkeeda wata. sidoo kale marka arrimuhu halkaas laysla marayo oo sabtidan soo socota bannaanbixii loogu ballansan yahay ayaa waxaa dhacay arrin raggii bannaanbaxa u ololeynayay dabarjab ku noqotay oo aad uga yaabisay taas oo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay saqdii dhexe ku dhawaaqay taasoo ahayd in maalinta khamiista taariikhdu ku beegan tahay 4 bisha 3 ay isugu imaan doonaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha gobolka Amiin iyo hogaamiyaha
gobolka Banaadir iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya shir lagu dhameystirayo dadaaladii doorashada ee socda. Arrintaasi waxaa gadaal ka riixaya oo cadaadinaya dowladda Mareykanka oo intaan shirkan lagu dhawaaqin ka hor xiriiro kala duwan la sameysay maamulka Puntland iyo maamulka Jubbaland isla markaana ugu baaqday in ay muhiim tahay in shirkaasi ka soo qayb galaan. madaxweynaha dowladda federaalka markii arrintaasi ay dhacday kadib ayaa waxaa sidoo lagu wargeliyay inuu ku dhawaaqo siyaasadda warqad xalay sabti dhahay soo baxday ayaa arrintaas lagu shaaciyay. waxa ay tahay markaa midowga musharaxiinta ee doonayay inay maalinta Sabtida ay muujiyaan shucuurtooda ay uga soo horjeedaan dowladda Farmaajo, isla markaana wax kastaaba ay naqato ama ay dhacaan banaanbaxa kadib in arrintan ay dhabarjab ku noqonayso. hadallo saxaafadda si hoose loogu soo disiyay ayaa waxa ay sheegayaan in mucaaradku isla beriba ay rabaan in ay qabsadaan banaanbaxooda ay uga soo horjeedeen dowladda. waa kaafiya kala dheeri daawadayaal, arrintan wixii ku soo kordha dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa. waxaana leenahay siyaasadda Soomaaliya ka socota waa seef laba af leh. ilaahay ummadda ka badbaadiyay ayaan leenahay. waa mahadsantiin. fadlan waa naga codsi. daawadayaal, waxaan idinka codsanayaa si xushmad leh inaad channelka YouTube-ka aad subscribe-ta nagala bakhaylina oo aad sii sheekaraysaan. page-keena Facebook-na aad share-ta iyo comment-ga ee like-ka aad ugu